بسم الله الرحمن الرحيم. وزيرka wasaaradda maaliyadda barasa bixinta gobolka sidooha xildhibaanada golaha deegaanka taliyaha ciidanka ilaalada cashuuraadka bataariyada saraakiisha wasaaradda maaliyadda dhammaantiin qaadi warbaahinta salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka ugu horeysa ilaahay baa mahad leh mar labaadka waxaan halkan mahad ugu celinaynaa wasiirka wasaaradda maaliyadda oo mar walba ka shaqeeya adeegyada arrimaha bulshada aad uga shaqeeya maantana ambalaaskii 17aad ee gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku wareejisay wasaaradda maaliyaddu maanta ku wareejisay degmada Agabar oo ka tirsan gobolka Gabiley lagu soo wareejisay waxaan aad uga mahadnaqaynaa iyadoo ka shaqeysa mar walba arrimaha caafimaadka waxbarashada iyo sportska oo aad u dhiirigeliso ardayda kubadda ciyaarta sidii ay garoomeeyo heli lahaayeen agab ay ku ciyaaraan ilaa maalintii ay wasaaradda waxbarashada ahayd ilaa maanta nagala shaqeysa dhammaan dadka guud ee gobolka aadna nooga caawisa aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay wasiir dadaalkaaga halka ka sii badi halkaana ka sii wad wasiirada kalena waxaan leenahay ku dayda wasiirka maaliyaddu sida uu leeyahay dhammaan inuu wax ka qabto arrimaha bulshada dhammaantood oo halkii kaga soo haagan mid walba ka qabto waa xil saaran dhammaan mas'uuliyiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan ugu mahadnaqaynaa ambalaaska maanta soo gudbisay wuxuu dabooli doonaa baahi badan oo ka jirtay degmada Agabar oo mar walba dhici jireen in gaariga laga dirayo Gabiley laga dirayo ama Hargeysa laga soo dirayo inay umushi raacdo halkaana qofkii ama dhiig bax ugu dhinto ama ugu dhinto ee daryeel la'aan maanta wuxuu heeyaa inuu sida ugu dhaqsaha badan leh loo gaarsiiyo maxay haydeen goobaha caafimaadka aad baan ugu mahadnaqaynaa Gabileyna waa hooyadii gobolka mar walba in maayiradeedu ay u dadaalaan oo u raadiyaan wax gobolka dhammaantii waa xil saaran waana waajib saaran dakhligayga dawladda hoose ayaanu aga barro wax kaga qabanaa meel walba wax kaga qabanaa oo degmada oo ka tirsan degmooyinka gobolka maadaama ay tahay hooyadii gobolka degmada Gabiley aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad wasiirka wasaaradda maaliyadda sidoo caafimaadka